saddexdan walxood ha samayn kadib cashada habeenkii. seexashada kadib markaad cuntaysid waxay ku horseedi kartaa calool olol, calool fuur, calool xanuun iyo hurdo xumo. cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu sheegay in dadka seexda markay calooshoodu buuxdo habeenkii ay khatar ugu jiraan xanuunka stroke. cabista shaaha ka gadaal cashada wuxuu carqaladeeyaa nuugista maadada iron ee jirka. aashitada tonic ee ku jira shaaha ayaa isku duubaysa dheefshiidayaasha shiidaya cuntadii aad cuntay kana mamnuucaya faa'iidadii uu kala bixi lahaa cuntada. hadday saan dhacdo qofka ayaa la daalaa-dhacaya dhiig yari, daal, xuurto, awood yari iyo cunto xumo. qabayska markaan qabaysano waxaa siyaadaya wareegga dhiigga ee jirka si uu u gaaro dhammaan qaybaha jirka madaxa ilaa lugaha. waxaase sidoo kale naaqusaya dhiigga soo gaaraya caloosha kadibna daciifinaysa habka dheefshiidka caloosha, sababaysana calool xanuun iyo madax xanuun.